جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم الصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalahii dhammaantiinba ku soo dhawaada Suhayb Saajid Media iyo barnaamijkeennii dhiirigelinta nafta. barnaamijkan maanta waxaan kaga hadli doonaa 4 qodob oo dhammaantiinba muhiim inoo ah. qofka ay maanta noloshiisa ka mid yihiin uu garan karo degenaanta, isu dheelitirnaanta, raaxada iyo macaanka uu ku nool yahay. qodobka koobaad wuxuu yahay waxaad ogaataa markaad hammi weyn leedahay si aad uga dhabaysid una gaartid hammiga waa inaad diyaar u tahay inaad maskax ahaan daashid, waa inaad diyaar u tahay in jirkaagu uu daalo, waa inaad diyaar u tahay soo jeed ay hurdadu kugu yara tahay, waa inaad diyaar u tahay niyad jab inaad kala kulmi kartid, waa inaad diyaar u tahay cadow fara badan oo yeelatid, waa inaad diyaar u tahay diidmada kaaga imaanaysa dadka kugu wareegsan noloshaada, waa inaad diyaar u tahay kartideedii awooddeedana aad lahaan kartid inaad noloshaada ka jari kartid qof kasta oo dib kuu dhigaya. kama hadlayo waalidiinta, kamana hadlayo qof qaraabo ku ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku diiday inaad goysid, laakiin inta kale aan ka hadlaya. waxaan ka baqayaa dadka qaarkood inay si kale u fasiraan oo cid walba noloshooda ka gooyaan, laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mar haddaad caasinaysid ha sugin inaad ka miro dhalisid meelna. waa in maskaxdaada aysan ku jirin wax qiil ah ama cudurdaar ah oo naftaada inaba dib u dhigi kara ama hadafka inay ka gaabisa sabab ugu noqon kara. waxaad kala ogaataa waxaadan noqon karin ma jiraan, waxaadan lahaan karin adduunkan ma jiraan. fursadaas way kuu furan tahay, wayna kuu taalaa. dadka bini aadamka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa buuray, waxay isdheer yihiin waa kartida sidii waqtigooda uga faa'iidaystaan iyo go'aanadaygooda. haddii go'aan lagaa waayo waa meesha ugu daran, waa inaad go'aan leedahay. haddii go'aan lagaa helo waqti sax ah waxaa ku qabatid oo ku suurtagelisid waa lagaa helayaa, maxaa yeelay waad go'aan adag tahay. haddii go'aan lagaa helo adkaysigeeda waad lahaanaysaa, wax kastaba ha kaa soo gaarayni, maxaa yeelay go'aanka aad gaartay baa wuxuu yahay shaygani waa inuu suurtagalo. adkaysi yeelo, raaxa ka dambaysa. waxaadan adduunka maanta noqon karin ama yeelan karin ma jiraan. waxaana ku siinayaa tusaale nool oo la taaban karo. waxaa jira inaan gobollada Somaliland ka soo jeeda $25 ayuu wuxuu ka dhaliyay $200,000 ka badan kambani jooga maanta. talo ma Yurub buu degan yahay? dabcan maya. ma Maraykan buu ina la joogaa maanta oo Maraykan buu dhex degan yahay? dabcan maya. waa wiil dhulkeennii hooyo dhex jooga. waxaa halkaa gaarsiiyey waa go'aankiisa iyo hammiga uu xambaarsan yahay. $25 waxba kuma cabirin, laakiin wuxuu eegayay oo fiirinayay natiijada ka dhalan karta. videoga wiilkaas isagoo dhammaystiran videogan descriptionkiisa ayaan linkiga ku soo share garayn doonaa, halkaas ayaadna kaga bogan kartaa sheekadiisa oo dhammaystiran. waxaana 200 oo jeer hubaa in aad naftaada canaanan doontid. qodobka labaad wuxuu yahay waxaad ogaataa noloshu sideedaba waa su'aal, jawaabteeduna waa sidaad ugu nooshahay. dareenkaaga hurdada ka kici oo isla haw, fakarkaaga iyo go'aankaaga adigu lahaw. waa hanti Ilaahay uu ku siiyay, xornimo adigu aad haysatid. ha u noolaanin sidii mid la dulmiyey. in fara badan dadku waxyaabaha noloshooda ka khariban cid kale u aadayaan. hadduu guurkiisu khariban yahay qofka nolosha la wadaago eedaynaya. lagama yaabo qofkaas inuu khaladkiisa qaato yiraahdo aniga gardaran oo khaldan, waxaan u baahnaa khaladkana nasaxo. dareenkaaga hurdada ka kici, dareenkaaga hurdada ka kici oo qaad mas'uuliyadda noloshaada. noloshaada xisaabi. haddaad aabba tahay ama hooyo tahay, ilmahaagu hadduu khaldamo maxaad samaysaa? waad canaanataa. laakiin
adigu maalin kastoo waagu bariyo baad khaladka shala samaysad ku celisaa ismana canaanatin waxaad ka caraysan tahay oo noloshaada oo dhan aad ciil iyo carow dareemaysaana waa go'aan xumada adiga kaa timid haddaba noloshaada beddel marnaba ha u noolaanin sidaad maanta u nooshay mas'uuliyaddeeda qaad oo ka faa'iidaysa fursadaha waayuhu kuu soo bandhigayaan subax kastoo waa kuu baryaba fursad baad haysataa maalin kastoo ku soo martana 24 saac baad haysataa fursadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siinay ka faa'iidayso waxaadna ogaataa noloshu inay adag tahay shaki kuma jiro maxaa yeelay marka horeba cid ina tiri way fududahay ma jirto way sahlan tahay qofnayna kuma oranin haddaba yaad sugaysaa inuu kuu yimaado oo noloshaada uu beddelo ma cid aad sugaysid oo lagu ballan qaaday baa jirta oo noloshaada doonaysa inay wax ka beddesho qaabka aad maanta u nooshahay kuma cuntamo waxaana hubaa inaad meesha aad joogtid 200 oo jeer meel ka sarraysa inaad gaari kartid qodobkayga saddexaad wuxuu yahay kuma hadi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyey rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay jannada waxaa lagu wareejiyey waxyaabaha naftu ay dhibsato naartana waxaa lagu wareejiyey waxyaabaha naftu ay jeceshahay jannadu waa shay raaxo badan oo dhammaanteen waxaynu u shaqaynayno oo u cibaadaysanayno oo ilaahay uga dhowrsanayno waa inaynu janno galno meesha aynu saa u doonayno baa waxaa lagu wareejiyey wax kastoo naftu ay karaahsato naartii laga cabsanayana waxaa lagu wareejiyey wax kastoo naftu jeceshahay oo macmacaan ah haddaba waxaan hadalkaa uga gol leeyahay xadiidkaan u keenay sideedaba nolosha haddaad doonaysid inaad ku raaxaysatid ood ku noolaatid ilaahay raalli ahaanshihiisa ood ku noolaatid nolol deggan oo qabow oo raaxa leh shaki waxaan lahayn inaad u baahan tahay buur dheer iyo mid gaaban iyo haddaad geeda dhex jiiraysid iyo haddaad biyo ku dabaalanaysid iyo haddaad webiyo goynaysid iyo haddaad derbiye ka boodaysidba sidii u noqon lahayd naf kartideeda ay ka faa'iidaystaan malaayiinta qof ee maanta adduunka ku nool naftaadu way noqon kartaa wax kasta oo maanta bini'aadamku ay jeclaystaan laakiin waxa naftaada liidaya ma taqaanaa waxa naftaadu ay meel la gaari weyday ma taqaanaa waxa naftaadu ay wax la noqon weyday ma taqaanaa waa adiga qodobkayga afaraad oo ah qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay weligaa ha joojin inaad wax baranaysid waxbarasho weligaa ha joojinin waa in maalin walba aad wax cusub baranaysid waa in maalin walba maskaxdaada aad wax ku kordhinaysid cilmi kororso caqligaagu ha kobce markaa ayaadna gaari kartaa noloshan hodantinimadeeda dhabta ah hadday tahay mid diineed hadday tahay mid maal iyo hadday tahay dhinaca qanaacadaba waa nolosha isu dheelitiran ee macaani deggan oo qof walbaaba uu raadinayo fursadaha albaabadeeduna ay dhammaanteen ina wada furan yihiin subxaana rabbika rabbi alcizzati camaa yasifuun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.